arrin la yaab leh oo lagu hoos arkay dhismaha burbure ee Hotel Xayaad miidadka shaabkii meesha ku dhintay oo la ogaaday inay ahaayeen saraakiil ka tirsan hay'adda nabad sugidda maamulka dhismaha hoteelka oo sheegay in raggan gudaha ka dagaalamayay ay muddo bila hoteelka deganaayeen isla markaana ay ku keydsanayeen raashin iyo saanada ciidan ay ku howlgaleen dariiska ciidanka ay xirnaayeen iyo raggan oo la sheegay inay wateen ay dhikaarada dawladda milkiilaha hoteelka oo banaanka soo dhigay xog sir oo qarsooneed sheegayna in ragga miidadkooda meesha laga helay al-shabaab u dagaalamay ahaayeen rag u sheegay inay ka tirsan yihiin hay'adda nabad sugidda oo hoteelku u kireysnaa muddo bila arrintaas oo ay ku fashilantay xogta inay ahaayeen raggan rag meesha waardiyeysanay oo muddo dheer sahansanaysay howlgalka naga fuliyaan warbixintan degdega waxaan ku eegaynaa xogta banaanka timid miidadka al-shabaabka lagu arkay meesha oo noqday mas-uuliyiin ka tirsan ciidanka hay'adda nabad sugidda qaarkood waa dharcad qaarkoodna hay'adda nabad sugidda ay si toosa dareeskeeda u xiran yihiin sheegariya warbixintan uu ku faafiyo dunida meel uu ku tabar muuqaalka oo bijikeena soo filowgaraya wahagaag aan ku bilaabo arrimo la yaab leh ayaa lagu arkay dhismaha burbure ee Hotel Xayaad intii ciidamada dawladda ay ku howlanayeen in la raadiyo dadkii shacabka ee meesha ku dhibtooday waxaa la soo helay qaar ka mid ah miidadka al-shabaabkii meesha ka dagaalamayay iyadoo la ogaaday inay yihiin xubno ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo saraakiisha hay'adaha ciidamada qalabka sida arrintan ayaa noqotay mid si weyn loola yaabo maamulka hoteelka iska lahaa ayaa soo bandhigay sidoo kale xog la yaab ku noqotay saraakiisha ciidamada qalabka sida waxa uu sheegay in ragga meydkooda meesha laga helay ay ka mid ahaayeen dad muddo bila hoteelka kiraahaan u deganaa waxa uu sheegay inaysan ku baraarugsanayn inay saanada ciidan iyo raashin meesha ku urursanayaan maadaama ay ahaayeen macaamiil hoteelka u gureysnaa oo muddo bila deganaa isla markaana sitay sida uu sheegay ay dhikaarada dawladda isla markaana loo ogolaaday inay hubkooda la soo galaan maadaama sida uu sheegay ay tusayeen maamulka meesha joogay hub iyo sidoo kale inay ka tirsan yihiin hay'adaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya arrintaas oo uu sheegay inay ugu ogolaadeen inay hubkooda meesha la galaan xogaha la yaab kale uu bixiyay ninkaas kale hoteelka iyo sidoo kale ninka la helay meedkiisa ee la sheegay inuu ka tirsanaa hay'adaha ammaanka Soomaaliya ayaa noqotay mid kale oo banaanka keentay xog la yaab ku noqotay shacabka Soomaaliyeed arrimaha la yaab kale ee lagu arkay hoteelka waxaa ka mid ah in loogu tagay gudaha hoteelka qoryo AK47 bastoolada iyo sidoo kale gacmooyin ku xareysnaa qol iyo sidoo kale raashinka noocyadiisa kala duwan caag saddexlayaal ay ka buuxaan subag iyo sidoo kale bambooyin ayaa loogu taliyay sidoo kale gudaha hoteelka qol ka mid ah maamulka hoteelka ayaa sheegay in labada qol ay ka kireysteen nimankan oo uu sheegay inay gaarayeen 5 nin ay hal qol sadeganaya halkan kalena ay sheegeen inay dhiganayaan dharkooda iyo waxyaabahooda kala duwan waxa uu sheegay inaysan ka shakin raggan inay al-shabaab ka tirsan yihiin ama ay qorshe kale damacsan yihiin maadaama ay tahay arrintani in raggan ay tuseen ay dhikaarada kala duwan ee hay'adaha ammaanka Soomaaliya aysan jirin sabab ay uga shakiyaan oo markaasi kalifaysa in ciidamada dawladdu ay ku abuurmo shaki baasan oo la xiriira inay arrintan qayb ka tahay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka isagoo oo sheegay in ragga sawirradooda iyo muuqaalada la baahiyay ay hayaan raggii la macaamili jiray maamulka hoteelka isla markaana muddada bish ah deganaa arrintaasi oo sidoo kale banaanka keentay xogo iyo tuhno waaweyn oo saacadihii la soo dhaafay dul hoggaanaya hay'adaha ammaanka Soomaaliya anigu waxaan rabaa inaan taabto booliiska Soomaaliyeed inay ahaayeen hooyadii dowladnimada Soomaaliyeed iyo nidaamka iyo kala dambeynta haddaad maqashaan dowlad wanaag waxa weeye aasaas waxa u ah booliis iyadana hadday dowladdu xun tahay macnaheedu booliiskaana shaqaynin hadday dowladdu wanaagsan tahayna ama aad maqashaan dowlad wanaagna waxa weeye booliiska habeen har iyo habeen taagan oo shaqadii dastuuriga ahayd ama waajibaadkoodii gudanaya digtoonow hanaqsan yasa haddaba waxaan rajaynayaa inaad bacdama aad tihiin
aasaaskii amniga ilaalinta amniga iyo law and orderka inaad shacabka u adeegtaan oo si hufan oo wanaagsan oo raxmad leh oo naxariis leh oo walaaltinimo leh aad ugu adeegtaan maxaa yeelay iyagaa bixiya mushaharkaaga waa taxpayers canshuurta iyagaa bixiya mushaharka aad ka qaadato booliisku waxay joogaan meel walbay joogaan qaybaha canshuurahay joogaan jidadkay taagan yihiin traafika weeye meel walbay joogaan meel alla meeshay joogaan hadday ay uga shaqeeyaan si hufan macnaheedu waxaa weeye oo qofka musuqmaasuqa wada ay qabtaan oo ay u soo gudbiyaan hay-adaha shaqada ku leh shaqadaas macnaheedu waxaa weeye dowladdaasi waa dowlad wanaagsan oo si wanaagsan u shaqaynaysa wey waa institutionkii waa hay-addii ugu horraysay oo la aasaasay waxbay kuu sheegaysaa marka macnay leedahay waxa weeye waxaan loo aasaasin 78 sano ka hor ciidamada dhulka ciidamada cirka iyo ciidamada badda iyo hay-adaha kale ee dowladda waxaa loo aasaasay inay yihiin aasaaska dhabta ah ee dowladnimada Soomaaliya loo diyaarinayay xorriyaddeeda